waxaan marka hore ka mahad celinaynaa kulankan aad noo abaabuseen oo qiimaha iyo qaayaha badan oo aad ku garnaqsanayseen maanta Soomaalina waxaan aaminsanahay inay codkiina ku maqleen sida aad u garnaqsateen waxaan ka tacsiyeenaynaa dadkii walaalaheen ahaa oo iyadoo xaq darro lagu barakicinayo saqda dhexe guryahooda loogu soo galay oo ku nafwaayay waxaan leenahay Ilaahay jannadii ha ka waraabiyo kuwa ku dhaawacmayna Ilaahay dhaqsaha ugu boogadhayo dadkii Soomaaliyeed oo aan halkan ku dhageysanay maanta oo codadkooda ku hadlay rag iyo dumar qofkii aan u damqan waa qof ay tahay in damiirkiisa su'aal la weydiiyo wixii halkan ka dhacay dadkaada iyo dalkaada laguma samayn karee waa wax mucjiso ah oo dalkan aan weli hore uga dhicin aniga hadalkiina markaan dhageystay waxa ii muuqata dawlad dadkeedii ka tanaasushay dawlad sharciyadii ka tanaasushay dawlad dastuurkii ka tanaasushay dawlad dadku markii ay dhulkooda u soo dacwoodaan xitaa maxkamadihii ay ka qaban laayihiin dacwadii waa meeshii ugu dambeysay oo dadku ay tagi lahaayeen qofkii markii suuqii laga barakiciyay oo gurigii laga barakiciyay oo iskuulkii laga barakiciyay oo jaamacadda laga barakiciyay oo Ilaahay baan idinku dhaarshay masaajidkii Ilaahay cagaf la geliyay oo maxkamad la tagi kara aanay jirin waxaan aaminsanahay inaan marayno meeshii ugu dambeysay waxaan aad uga xumahay marka in dadka la barakicinayo ay yihiin dadka Soomaali ugu dan yar kuwa ugu dhiban qaarkood ay yihiin dadkii dalkan u soo jihaaday 70 sano oo banaanka lagu fiirsanayo sidii walaalkay Cabdiraxmaan oo halkan ka sheegay annagu waa idin garab taaganahay 100% inta aad xuquuqdiina raadinaysaan waa idin la raadinaynaa waa idin soo baxaynaa meel walba oo aad nooga yeertaana haddii Ilaahay yiraahdo waa imaanayna yeeritaanka idinka iskale ajiibidana annaga iskale waxaan rabaa inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee loo soo tababaray inay dalkan difaacaan ummadda Soomaaliyeed ay xoogga ku bixisay oo qof walba annaga namgamida oo halkan fadhiya uu xoog iyo waqti geliyay si ay dalkan u difaacaan wiilasha walaalahay ah wiilasha aan adeerka u nahay wiilasha walaalayaalow yaan hooyooyinkiina barakicina laydin dhihin ha barakicinina maatada ha xasuuqina dadka ha ku dagaalina hodan dhexdeeda iyo horseed ha ka barakicinina dadka warshadaha iyo daynile ha teginina suuqa Siinaay oo dadka ha barakicinina waxa la idin soo carbiyay oo la idin tababaray oo la idin carbiyay inaad dalka difaacdaan ee la idin ma carbin inaad leysaan dadka Soomaaliyeed sharcigu waa ilaalin waana ku dhaqan si sharciga loo ilaaliyo oo loogu dhaqmana cidda ilaalinaysa waa idinka amarka cadaaladda oo saxda baa la qaataa hooyada soo dil amar ah lama qaadan karo gabar Soomaaliyeed oo iskuul ku maqan gurigeeda dumi lama qaadan karo ciidanka marka waxaan leeyahay waa inaad ka foojignaataan waxaan rabaa inaan ganacsatada Soomaaliyeed u sheego aan iraahdo ha isku iibsanina dhul xaaraan ah ha isku iibsanina dhul sharci darro ah ha isku iibsanina dhulka danta guud oo aad ogtihiin inay dawladdu leedahay waa sharfaynaa waa u hambalyeynaa ganacsatada sharafta leh oo aan samayn qof kasto ganacsataa xoolo haysta waxaan kula talinaynaa si kale ugu ganacso xoolahaada magaalada waxaa ku soo batay in qofkii hadlaba la xiro nabadoon Soomaaliyeed ayaa xalay la afduubay oo la xiray oo wali xiran wariyaal ayaa maanta la xiray dad kale oo Soomaaliyeed oo xuquuqdooda ka hadlaya ayaa la xiray cod dheer baan rabaa inaan ku iraahdo lama aqbali doono lamana aqbali karo
إذن كان وحان ربنا إن هذا مرنبا حقوقي إنك تنازلنا وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته